بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. والعليك شرفت لك ولانتي وناكسن وعن ملك استاذ دونك جوجتان. إلهي سبحانه وتعالى دنبقنا دنبق والدكنا دافو. إلهي سبحانه وتعالى أنت دباتيسن دباتها كقاضو. إلهي سبحانه وتعالى أنت حنوسن حنونك كقاضو. إلهي سبحانه وتعالى ودنكنا نبدي أمانها نوقدقو. إلهي سبحانه وتعالى قلوبتنا حكي لقلوب أساق كحرا وما لنت قيامها كبد بعد عذابك. ولا ليال الحمد لله waxaa fooda berito lanoo bilaaban doonta oo fooda nagu sahaysa 10 maalmood ee ugu fadli badnaa acmaal la suubiyo Ilaahay subhanahu wa ta'ala agtiisa walaalayaal nasiib daro dad badan way moogeen maalmahaas nabigana kaleey salaatu wa salaam wuxuu leeyahay ma min ayaamin al-amal as-salih fihinna ahabbu ila Allah minhu ma jirto 10 maalmood oo looga jacayl badan yahay Ilaahay agtiisa acmaasha wanaagsan oo la suubiyo maalmahan 10 ah markaas saxaabada yaabeen waxay yiraahdeen wala jihad fi sabilillah hatta jihadka ilaahay dartiis loo baxo yani way la weynaatay ma gaaraan miya markaas nabiga kaleey salaatu wasalaam wuxuu yiraahday wala jihad fi sabilillah hatta jihadka fi sabilillah loo baxo ma gaaraan maalmahan illa rajulan kharaja bi nafsihi wa malihi illa qof bixiyay naftiisa iyo maalkiisa oo aan waxba uga soo laabanin haddaba walaalayaal 10 maalmood ee sidaas u fadli badan ee amalka la suubiyo Ilaahay subhanahu wa ta'ala agtiisa loogu jecel yahay bal sida culimada sheegeen Ilaahay subhanahu wa ta'ala uu ku dhaartay wal fajr wa layaalin 10 culimada mufassiriinta badankood waxay leeyihiin wa layaalin 10 habeenada 10 ah waxa laga wadaa 10 maalmood ee Dhulxijja ah Allahu akbar Ilaahay subhanahu wa ta'ala waa weyn yahay waxaan weyneenna kuma dhaarto haddaba sidaan uga faa'iideysan karnaa fursadaas ko walaalayaal Ilaahay subhanahu wa ta'ala u toobad keeno oo Ilaahay subhanahu wa ta'ala weydiisana dambi dhaaf walaalayaal waxaad ogtihiin inaan bid'aadan nahay inaan gafno inaan uma taqaana waxamano inaan heesa dhageysano inaan aroosyada tagno inaan wax Ilaahay subhanahu wa ta'ala raali ka ahayn suubino laakiin Ilaahay subhanahu wa ta'ala nimcadiisa fursad ayuu noo siiyay inaan Ilaahay subhanahu wa ta'ala u toobad keeno Ilaahay uu ku jecel yahay Ilaahay subhanahu wa ta'ala wuxuu rabaa inuu ka badbaadiyo cadaabka Ilaahay janno ayuu kugu yeerayaa shaydaankana wuxuu kugu yeerayaa fusqi cadaab ayuu kugu yeerayaa haddaba walaalayaal waxa loo baahan yahay waxyaalahan anfacaya inaan ku dadaalno waxa ugu horeysa walaalayaal inaan salaada tukano oo salaada faralka Ilaahay subhanahu wa ta'ala nagu waajib yeelay aan tukano oogno dad badan oo naga mid ah walaalayaal salaada waan dayacnaa maanta go'aan gaar marka aad soo weysayso Ilaahay subhanahu wa ta'ala u jeeso Ilaahay bari Ilaahay subhanahu wa ta'ala u toobadkeen Ilaahay subhanahu wa ta'ala uu ku waafajinaya wallahi qofka Ilaahay subhanahu wa ta'ala kaalmo weydiista oo qalbiga uga toobadkeena Ilaahay subhanahu wa ta'ala uu ku kaalmeynaya walaalkayga muslimka ah salaadihii aad hore u soo gaabisay kuwii aad ka tagtay waxaa maanta ka muhiimsan inaad Ilaahay subhanahu wa ta'ala u toobad keentid inaad naftaada salaada ku badbaadisid salaada walaalkayga muslimka ah waxay ka badbaadinaysaa naarta ay ka badbaadinaysaa soomka inaad badisid 10 maalmood walaalayaal aad ayaa looga faa'iideystaa qofka soomi karo awood u leh inuu soomo ayaa fiican gaar ahaan waxa aad u fadli badan yawm Arafa insha Allah ta'ala aanu ka hadli doono waxaan kale ugu baaqayaa qofka qalal lagu leeyahay inuu ku aadisto 10 maalmood oo ma taqaana fadliga badan oo Ilaahay subhanahu wa ta'ala ajirka ma taqaana aad u laabo inuu ka faa'iideysto soonka lagu lahaa uu maanta bilaabo bari bilaabo xilliga ugu horeyso bilaabo oo uu ka faa'iideysto sidoo kale walaalayaal waxa loo baahan yahay in takbiirta la badiyo alxamdulillah subhanallah walhamdulillah la ilaha illa allah wallahu akbar subhanallahi alazim wa bihamdihi inaad Ilaahay xuskiisa badisto loo baahan yahay sidoo kale walaalkayga muslimka waxa muhiim ah inaad quraanka akhriskiisa badisid quraanka daadan akhrin karin waa dhageysan kartaa والله القرآن كله دقيست دواء أيها كجرت رحمة أيها كجرت عافمات أيها كجرت قلبك أيو دواء وياه لقاها أيو دواء وياه وحان سيدو كالكوش شيئا إنها طبعا كما الموت مع سيدة كفوقاتي ولكن مسلم كهو سيدة عبادة يوحى ونأكسن إلهي كقود وين يان وشيدان كو عرق لنا يان وحاد أقاتا مع سيدنا إن إلهي سبحانه وتعالى كافو قينيسو شيدان كان عرق لنيسو إن شاء الله تعالى waxaanu mar walba isku xasuusinayna inaan Ilaahay subhanahu wa ta'ala xusno walaalayaal Ilaahay dartiisa ayna jecelahay Ilaahay subhanahu wa ta'ala idin naxariisto meel kasta joogtaan Ilaahay subhanahu wa ta'ala dambigiina dhaafo walaalihiin si gaarsiiya khayrka la jeclaada wanaaga sii fara waxa laga yaabaa
aniga wax sheegaya iyo adiga daawanaysid qof kale oo saddexaad oo aan u gudbinay inuu ka faa'iido oo ajran ka helno ilaahay subxaanahu wa ta'ala ummadda muslimiinta dhibaatada ka qaado ilaahay subxaanahu wa ta'ala Soomaaliya ha wanaajiyo wadankeena nabad ha nooga dhigo wassalaamu calaykum wa rahmatullahi wa barakaatuh